صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنتون أكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحنهني عشر هذه كساب سنة نفقة ديرتو وباهنتهي وعشر كي سجالات وحن كبرندون هدي إلهي يرهدو مانتا عريها مجيء سلا يرهدو زنك نانيسا عريها زنكي وزت ان أما زت نا وعريها صدناد كالجلكا عرياشا سنكي وبركمد عرياشا كالجوركا كالجلكا عرياشا tira adamkeedu waa 26 halka culays atamkeedu ka yahay 65.38 kaaftoonkeeduna waa 2 waayahay waxtarka zinki waa maxay waxtarka zinki maxay tahay faa'iidada ay leedahay maadada la yiraahdo ama curiyaha la yiraahdo zinki waa maxay waxtarka uu leeyahay beeraha waxtarka zinkigu wuxuu ka mid yahay curiyaasha yaryar haddii aad xusuusato curiyaasha nafaqada ee dhirtu u baahan tahay waxaan u kala qaadnay 2 qaybood qolo waxaan ku sheegnay curiyaasha waaweyn oo loo yaqaan macronutrient waxayna ahaayeen nitrogen phosphorus potassium calcium magnesium iyo sulfur qaybta labaadna waxay ahaayeen curiyaasha yaryar waxaana ka mid ahaa manganese waxaa ka mid ahaa iron waxaa ka mid oo kale zinki iyo kooxo kale oo noo imaan doona marka zinkigu wuxuu ka mid yahay curiyaasha yaryar dhirtuna waxay nuugtaa isaga oo ayoonka zinki oo positive 2 wuxuu kaalin muhiim ka qaataa sameynta hormoonada dhirta hormoonadu waa isku dhisya kiimikaad oo fududeeya falgalada kiimikaad ee ka dhaca dhirta dhexdooda wuxuu ka qayb qaataa sameynta amino acidka muhiimka ee loo yaqaano tryptophan oo sameeya maadada loo yaqaano auxin waa koox hormoon waxay qaabilsan yihiin nidaaminta koriimada dhirta macnaha geedka inuu u koro si dheelitiran ayay mas'uul ka yihiin wuxuu ammonia waxaan ka hadlaynaa zinki wuxuu ammoniyada u bedelaa amino acid ayuu bedelaa isku dhiska loo yaqaan ammonia oo isku dhis sahlan oo inorganic ayuu wuxuu u bedelaa amino acid oo organic compound astaamaha yaraanta zinki haddaba maxay tahay calaamadaha aad ku garan karto in zinki ay ku yartahay geedka barabaro jaalla ayaa ku sameysma inta u dhaxaysa xididada caleemaha iyadoo xididadu ay cagaar sii ahaanayaan haddaad u fiirsato sawirada hadda ku muuqda caleemuhu waxay leeyihiin xidid weyn ayaa dhexda mara xididkaasna xidida ayaa ka leexda laba xidid inta u dhaxaysa ayaa waxaa ka muuqanaya barabaro jaalla ayaa ka muuqanaya laakiin xididadu ayagu iyo hareerahoodu wali waxay sii ahaanayaan cagaar caleemaha cusub waxay noqdaan kuwa yaryar caleemaha cusub macnaheedu waa maxay waa caleemaha hadda soo baxay bal sawirkan hadda hoose hadaan fiirino caleemaha cusub waa kuwa ugu yaryar ee hadda soo dhalanaya waxay noqonayaan kuwa yaryar oo gaaban oo cambaar leh oo ku tuban laanta waxaad moodaysaa inay hal meel ku urursan yihiin laamaha darfahooda oo engega khaasatan geedaha liinta 4 caleemaha geedaha liinta waxaa lagu arkaa barabaro saliid u eg maadaama mirahana 4 aan ku soo celiyo 4 caleemaha geedka liintu waxaa lagu arkaa barabaro saliid u eg miruhuna way yaraadaan qolof weynna way yeeshaan 4 caleemaha geedaha liinta waxaa lagu arkaa barabaro saliid u eg miraha oo yaraada qolof weynna yeesha waxaa yaraada awoodda dhirta ee sameynta laan miroodka macnaha laamaha miruhu ka baxaan geedku inuu sameeyo awooddu u leeyahay ayaa yaraanaysa sidoo kale waxaa yaraanaya mirihii sameyntoodii ayaa yaraanaya geedkan laantani waa laan yaanya waxaad arkaysaa zinki yaraanteedu sida ay uga muuqatay halkan waa basbaas asagana waxaad arkaysaa sida saameynta yaraanta zinki ay uga muuqatay
caleemihii oo barabara jaalla ah leh sidoo kale sawirradani waxay qayb ka yihiin sawirrada kuu muujinaya calaamadaha lagu garto yaraanta zinc meeshan dalagyo kala duwan baa nooga muuqda galley baa noo muuqata yaanyaa noo muuqata dhammaantoodna waxa ka dhiman waxaa weeyaan zinc calaamadaha zinc yaraanta ee geedka qaangaarka ah sidan buu noqonayaa macnaha geedku maadaama hore waxaan usoo sheegnay maado la yidhaha oxygen inuu samaynteeda muhiim u yahay oxygenna waxaan sheegnay inay kontarosho kariimada geedka hadda waxaad arkaysaa geedkan qaybtii uu ka kori lahaa caleemihii oo dhan oo isku tuban oo isku urursan inay samaysmeen marka waa calaamadaha aan ku garan karayso in zinkidu ay ku yartahay geedka jazaakum allahu khayran casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay haddii aad casharka wax ka faa'iidaysatay ha iloobin inaad tidhaahdo subscribe lana wadaagtid asxaabta jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu